السلام عليكم أصحابتي سو دواده جمعة مبارك جمعة wanaagsan meel kastoo joogtaanba maanta iyo qisa cusub qisadana waxay ka dhacday wadanka Masar marka waxay ahayd inan iyo hooyadeed qisadan ayay ku dhacday marka inantu waxay ahayd hooyad 70 ka dhaaftay ay ahayd qof weyna inantuna waxay ahayd inan iyadoo ma yareen laakiin 40 meeyaa bay ahayd da'da 40 ka bay ahayd kadib maxay ahayd inantu waxay ahayd waa la guursaday waa la soo furay marka hooyadeed ayaa la noolayd kadib maxay ahayd inan hooyad la joogto meelaha ka shaqaysata ay ahayd marka hooyada waxay ahayd hooyo qof weyn oo guriga iska joogta ay isla nool yihiin marka inantii way hooyada way dhibsatay waayo hooyada waxay tiri mar walba waxay igu yeedhisaa hadal xun bay igu yeedhisaa way igu adag tahay dabeetana inantii gaadhay xaaladeedu inay hooyadeed ay aad iyo aad u dhibsato maalmaha kamid ayaa dabeetana inantii hooyadeed intay soo qabatay ayay way ceejisay cunaha ayay qabatay marka inantii cunihii hooyadii ay qabatay hooyada halkiiba ku suuxday la waa qof weyne markay suuxday ismail hayadu way dhimatay ismail hayn waxa maslad malaha wayara suuxday way iska soo kici doontaa waaba iska agseexatay iyadoo markii dambana cadhadii hooyada waxa leeyahay suuxsanada sidii nafta uga baxday waxa la iska agseexatay oo siday markaa waxa la booliska ugu sheegtay marka waxay tiri ilaa habeenkii sidii u suuxsanayd waan arkay inay markaa hooyada sidaa ku dhimatay laakiin anigu ma aanu qasti cadhadiiga tan badatay ayuunba muxuu hayaan waxaan u sameeyay markii dambe haddana waxay istiri sidee baad u qarisaa dhacdadan aad samaysay waa dhacdaad iyo aad wallahi waxaan kulul hooyooyinkuna waxaan leenahay in loo dulqaato aad iyo aad buu fiicantay laakiin hadalka xumar marbu shaydaanku uu adeegsanaya qofkii inuu moogtay fal xun u geysto marka waxay qodoontay inay qariso hooyadeed dilkan ku samaysay gabadhu waxay soo qaaday inay hooyadeed ay googoyso oo lugba meel dhigto gacanba meel dhigto madaxii meel dhigto haddana ismay oran qaado wixii daama dibadda u tuurha lagu qabtay daama sidaabaha ku Allah meelaha ku soo tuursmay oran wixii guriga iska dhex dhigtay waxa la madaxa waxay ku riditay talaagada lugihii iyo gacmihii waxa lagu leeyahay meelaha madbaqiya meelahaas iska dhigtay kadib waxa lagu yiri wixii gurigii ayuu waxa lagu leeyahay ku uray markaas waxa lagu leeyahay xitaa jaarkii xaafadii waxa lagu leeyahay guriyihii ku jiri kar waayeen intii de ku nabnayd ku dhaweyd markaas dabeetana waxa la yiraahday u yeedheen baa la booliskii ku yiraahdeen baa la gurigan wax aad u badan oo xamil kalinaan hayba ku jirta marka waxaan doonayaa inaad eegtaan ciidanka kama soo baxbaxdo iyadoo marka guriga way ka maqnayd booliskii baa yimid gurigii waa la jabiyay waa la furay waxa la arkay bismillaah waxa laga yaabay oo caadad dadkii madaxooda ay ka weynaatay carshan falkasta loo geystay kulnaba la isma lahayn inanta hooyadeed waxaan ku samaysay inanta ku samaysay matalan afwan marka waxa la yiri wixii adag inantii kadib iyadana waa la baadi doonay waa la soo helay markii la soo helay waxa la soo qabtay waxa lagu leeyahay mabayba ka nixnixin manay dafirin waxa tir baa la dhan hooyaday waa noolaa hooyaday dhibaatadaas ay ku haysay mar walba waxay u yeeri jirtay yaa mudallaq carshan gabadhi la furay markaan wana kelmadda aad iyo aad baan u dhibsaday waxaan oran jirtay bay tir aabahaaba nin xun buu ahaa marka aabahayo kala ayaa tahay ana cadhadii gooran hooyadeed aan cunaha qabtoon ceejiye maan isgaranayn marka sidaas sheekadii ku dhacday waxa la yiri marka ma bay dafirin sidii ka tabatana waxa la yiri sheekadaas ay ku dhacday way iska qiratay inantiina marka waxa weeyaan waxa wanaagsan in awlaadda hadii muxuu hay awlaadu wax walay waalidku sameeyeen boorta la iska dulqaato aan waa waalid weeyaan hadal adaygan iyo afxumadan kullayba qofku waa la isaga dhashaa waxa weeyaan marka waxa hooyada hadii goorba ku hadal xun tahay intaad iska dulqaadan karto inaad iska dulqaadato ayaa wanaagsan oonad dhagar galin adigu oonad dhibaato aanad waxba u geysan haddii aad ka ruweedo inta dileed qof inuu iskaga tago wax dhaama ma jirto marka qisadii saasay ku dhacday marka waxaan leenahay waalidku naxariista inuu iska muxuu ahaayay u naxariista awlaadiisa ayaa wanaagsan waa awlaaduna ay waalidkoodu naxariista u dulqaataan intay u dulqaadan karayaan waliba caruurteen ay maxaa waalidku afwan ay u dulqaataan
awlaadu waalidkood wax kasta ay ahaadaan iyo si kasta oo ay u adag yihiinba in loo dulqaato ayaa wanaagsan. Channelka waxaad ina subscribe tii like bay saartaan haddii insha Allah qisad dambe haddii la soo noqdo wanaagsan aad baan idin salaamayaa jimco wanaagsan.